iyada oo waqti xaadirkani lagu jiro horaantii xilliyadii ay culan jireen roobabka gugu ayaa markii ugu horreysay guddida abaaraha ee degmada Togwajaale ay gurmad ka galeen dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaano hoos yimaada gobolkani Gabiley gaar ahaan degmada Togwajaale isla markaasina baa gaarsiiyay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan deegaanadaasi si ay xoolaha intii uga hadhay abaarta iyo dadkuba ay uga nabad galaan roobabka guga ee hadda ka culanaya guud ahaan badalka waxa ugu horreynna ka warbixiyay deeqdani guddida abaaraha ee degmadaasi Togwajaale idanka ilka weyna hoostiisa anagoo soo guurtada u qaybinaynay bacihii si ay roobka magaranaysa ariga ay uga duldhigaan marka ay daruurto ay ku daado ariha soo aad u itaal daran marka umka calaa aqal baan ugu leexanaynay amaanta waxaan ku hamiyay waxa igu warwar badnaa waxaan ariga duldhigo haday daruurtaas maanta daruurta marka taasna weynahay mahadii marka waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii bixiyay ee ugu deeqay magaranaysa hantidaasi walaalahood inay u badbaadiyaan ariga ay taalka daran leh bacaha ugu deeqay wallahi dadkii baaqiyaadkii u hadhanaa maanta haddaan baclala gaadhin aad bay dhibtooda u badnaanaysaa marka waxaan markaa mahad badan u celinaynaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland iyo guddida kaalmada ee Togwajaale taasoo wallahi aad ay ugu mahadnaqeen markay arkeen fadka iyo bacaha nuusida qof walba qaar ba farxadda qaarkood ilmeeyayba marka bardhowtay markaan soo marray ilmay keento ilaahay baa saas ugu ogaa marka arinta noocaas aan u soconay way wixii dhulka yaalo dhamuu dhamaaday marka sidaa ugeed bacaaneen waxba kama gaarayso markay waxaan siinay iyo konton ari oo qoys baanu wacasiinay intaas saddex laabkeed baa afar laabkeed baa haray waxaas waxde dadkii kafeynaya maaha marka waxaan ugu baaqayaa walaalayaal inaan dawlad ahaan iyo shacabaan isla kaashano oo inuu imaka bacaa gurmad bacaa ka gaadhno annagoo ah guddidii waxaan qaybinanaa baco loogu talagalay in ariga roobka laga saaro waayo xooluhu way jilicsan yihiin aad bay u jilicsan yihiin sida aad ka arkaysaanba maaragtay telefishinada iyo maaragtay shaashadaha runtii xoolahaasi markaa waxay u baahan yihiin in la jiriyo roobka laga ilaaliyo si aanay u dardanin dhinaca kalena waxaa iyaguna ka mahad celiyay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee deeqahani la gaarsiiyey waxa weeye haddii aanu nahay dadka abaara keentaga ah ee la jeedaana degmada Togwajaale waxay naga caawiyeen biyaha oo si joogtaan lagu shubi jiray laba jeer mar loo shubi jiray iyo raashinka oo qaybaha dambe si fiican lagu keenay iyo ugu dambeyn markii roobku soo joogsaday imka loo keenay bacihii وعلي محمد جامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في دقمة Togwajaale انت بانو كهاينا